boqortooyadii luntay ee Atlantis waxaa lagu sheegay in ay ku taalay Badweynta Atlantic meel ka baxsan Hercules Beer oo hadda loo yaqaano Gibraltar Strait. Sida uu faylasufkii Plato ku xusay qoraaladiisii, boqortooyadani waxay ahayd jasiirad weyn oo ku taala meel u dhow Badweynta Atlantic. Qoraalada ugu horeeya ee xusaya Atlantis waxay ka soo baxeen buugaagtii faylasufka qarnigii 4aad ee dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam ka hor. Plato wuxuu qoray in boqortooyadan hodanka ah ay ku taalay Badweynta Atlantic ee u dhow jasiiradaha Gibraltar. Waxa uu sheegay in dadkii reer Atlantis ay ahaayeen bulsho horumarsan kana sare maray bulshada caalamka waqtigaas ku noolayd, iyagoo caan ku ahaa tiknoolajiyadooda, dhismayaashooda heerka sare ah iyo xoogooda militari. Sidoo kale Plato waxa uu sharxay in Atlantis ay ahayd boqortooyo weyn oo ka koobnayd tiro badan oo jasiirado ah oo ku wareegsan badweyntan, kuwaas oo ay ku yaaleen magaalooyin waaweyn iyo dariiqyo isku xira oo horumarsan. Waxa uu sheegay in boqortooyadani ay ahayd ku nool nolol raaxo leh oo ku faanta ilbaxnimadeeda. Sababta burburka boqortooyada Atlantis waxaa lagu sharxay qoraalada faylasufka Giriigga ee Plato. Sababaha ay u burburtayna waxaa ka mid ahaa kibirka iyo xumaanta. Plato waxa uu sheegay in dadka reer Atlantis ay bilaabeen in ay noqdaan kuwo kibir badan iyo isxukun badan. Horumarkoodii iyo raaxadoodii ayaa ka dhigtay in ay ka fogaadaan akhlaaqda wanaagsan iyo xeerarka, taas oo keentay in ay ku dhacaan xumaanta. Sidoo kale waxa ay isticmaalayeen awood xad dhaaf ah. Qayb ka mid ah kibirka boqortooyadan ayaa sidoo kale ah in ay isku dayeen in ay ka adkaadaan dalalka kale oo ay ku xukumaan aagag waaweyn. Haddii ay iyagu haysteen awooddaasi, waxaa loo arkayay in ay ku kaceen falal aan loo dulqaadan karin. Burburka Atlantis sida tusaalaha ah ee ka tarjumaysa halista ay leedahay bulshadu marka ay ka leexato akhlaaqda iyo xeerarka. Sidaas darteed, dhacdadani waxa ay noqonaysaa cashar ah in bulshooyinku ay ka fogaadaan xumaanta iyo kibirka. Inkasta oo ay sheekadan tahay mid taariikhi ah oo caan ah, weli ma jirto caddayn cad oo muujinaysa sababaha dhabta ah ee burburka boqortooyadan, waxaana si weyn loogu dooday sababahaasi. Laakiin ugu dambeyn ay ku dhacday burbur, taas oo ku dambeysay in ay ku qarsoonto biyaha, iyadoo ay uga wacan tahay xagashada iyo kibirka ay sameeyeen. Sida uu Plato sheegay, Atlantis waxa ay si tartiib tartiib ah ugu liidatay korriinka xumaanta iyo musuqmaasuqa, iyagoo lumiyay akhlaaqdii iyo wanaaggii ay ku caan baxeen. Hal mar iyo wax ka badan 9,000 oo sano ka hor waqtiga Plato, waxa uu sheegay in Atlantis ay la kulantay musiibo dabiici ah oo naxdin leh. Dhul gariiro iyo mowjado xoog leh ayaa ka kacay, taas oo sababtay in boqortooyadii weyneyd ay ku qarsoonto badda waqti kooban gudihiis. Inkastoo sheekadan loo aqoonsaday in ay tahay halyey taariikhi ah, qaar badan ayaa rumaysan in ay tahay tusaale uu Plato u isticmaalay in uu ku sharxo xumaanta iyo kibirka awoodda, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in Atlantis dhab ahaan ay jirtay, balse weli raadinteedii aan la xaqiijin. Muddo dheer waxaa jiray dad iyo kooxo baarayaal ah oo ku howlanaa raadinta boqortooyadan luntay. Cilmi baarayaal iyo kooxaha sahminta iyo xitaa dadka xiiseeya halyeeyadu waxa ay ku dadaaleen in ay helaan caddayn buuxda oo muujinaysa in Atlantis dhab ahaantii ay jirtay. Goobo kala duwan oo dhulka iyo badaha ah ayaa lagu sameeyay baaritaanno, waxaana meelaha sida gaarka ah loo baaray ka mid ahaa Badweynta Atlantic. Tani waa meesha ugu cadcad oo ay dadka intooda badan u qaateen inay ku taalay boqortooyadii Atlantis, maadaama Plato uu sheegay inay ku taalay meel u dhow Gibraltar.
Waxaa sidoo kale jirtay aragti ah in boqortooyadii Atlantis ay ka jirtay meel u dhow badda Mediterranean-ka, gaar ahaan jasiiradda Crete oo mar ahayd hoyga ilbaxnimada Minoan oo iyaduna ku baaba'day qarax foolkaano oo xooggan. Qaar ka mid ah dadka baaraya sheekadani waxa ay aaminsan yihiin in Atlantis ay ku taalay meelo ka mid ah Caribbean-ka, gaar ahaan jasiiradaha Bahamas iyo Cuba. Qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad, sheekada Atlantis waxa ay dib u noqotay mid aad u xiiso badan, iyadoo aragtiyo cusub iyo cilmi baarayaal kala duwan ay ku lug yeesheen. Donnelly, oo ahaa qoraa iyo siyaasi Maraykan ah, waxa uu soo bandhigay buuggiisii Atlantis uu uga hadlayay 1882, kaas oo uu ku dooday in Atlantis ay ahayd ilbaxnimadii asaliga ahayd ee ka horeysay dhammaan ilbaxnimada kale ee dunida. Sidoo kale, sheekooyinka iyo filimada caanka ah ee casriga ah ayaa ka faa'iideystay sheekadan si ay u abuurtaan halyeeyo cusub, kuwaas oo weli qoto dheer ku leh dhaqanka. Sidoo kale, waxaa lagu xusay buugaag badan oo soo bandhigayay habdhaqanka iyo fikradaha boqortooyadaasi ee qarsoodiga ah. Inkasta oo sheekada Atlantis aan laga helin caddayn la taaban karo oo ay jiraan macluumaad fara badan oo aan iswaafaqsanayn, weli sheekadani waxa ay u muuqataa mid soo jiidasho leh. Taasi waxa ay noqotay isha raadinta joogtada ah ee qotada dheer ee loogu jiro sheekadani, waxa ayna u muuqataa in dadku weligood xiise gaar ah ay u yeelan doonaan ogaanshaha runta ah ee ka dambeysa boqortooyadani luntay. Marka loo eego dadka xiiseeya sheekadani, waxaa laga yaabaa in uu jiro sir weli qarsoon oo sugaysa in la helo. Maanta, raadinta Atlantis waxa ay u tahay dad badan wax ka badan sheeko halyey ah, waxayna leedahay xiise gaar ah oo dib u soo nooleynaysa xiisaha weligeed loogu hayo xaqiiqada iyo runta ku hoos jirta halyeeyada lumay. Boqortooyadii luntay ee Atlantis waxa ay ahayd sheeko caalami ah oo weli raadinteedii iyo layaabkeedii ay dadku xiiseynayaan. Inkasta oo aysan jirin caddayn dhab ah oo muujinaysa in boqortooyadani ay jirtay, haddana sheekada iyo halyeeyada ku xeeran oo aan weligeed loo joojin doonin baadigoobkeeda. Halkee ayay dhab ahaan ugu taalay boqortooyadii Atlantis? Waxaa laga yaabaa in jawaabta su'aashan ay qarsoomi doonto weligeed, ama maalin maalmaha ka mid ah la helo, taas oo noqon doonta mid cajiib ah. Sidoo kale, boqortooyada Atlantis waxaa lagu tilmaamay bulsho aad u horumarsan oo caan ku ah tiknoolajiyadda, farsamada, iyo cilmi baarista. Dadka reer Atlantis waxa ay lahaayeen aqoon sare oo ku saabsan dhismaha, wax soo saarka, iyo maaraynta kheyraadka. Boqortooyadani waxaa la sheegay in ay ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah, iyadoo haysata xiriiro ganacsi oo ballaaran oo ay la leedahay dalal kale. Waxa ay caan ku ahayd badeecooyinka kala duwan oo ay ka mid yihiin dahabka, foornada, iyo waxyaabo kale oo qiimo leh. Atlantis waxaa lagu sheegay in ay lahayd dhismooyin qurux badan oo ay ku jiraan magaalooyin waaweyn iyo dhismooyin cajiib ah. Qoraallada Plato waxa ay muujinayaan in magaalada dhexe ee Atlantis ay ahayd mid aad u weyn oo leh waddooyin qurux badan iyo dhismayaal waaweyn. Sidoo kale, qoraallada Plato waxa ay muujinayaan in dadka reer Atlantis ay ku noolaayeen nolol raaxo leh oo leh nidaam bulsho oo wanaagsan. Waxa kale oo la sheegay in ay lahaayeen xeerar adag oo ka caawiyay in ay ku noolaadaan si nabad ah. Atlantis waxaa lagu sheegay in ay ka koobnayd jasiirado badan oo ku yaalla badweynta Atlantic, taas oo ka dhigtay mid sahlan in la galo. Masaafadaas ayaa sidoo kale ka caawisay inay noqoto xarun ganacsi oo muhiim ah. Boqortooyada Atlantis waxa ay noqotay
halyey iyo sheeko caan ah oo soo jiidatay dareenka dadka. Waxaa la sameeyay cilmi baaris iyo filimaan badan oo ka hadlaya sheekadan ayaa sidoo kale keentay in la abuuro aragtiyo badan oo ku saabsan ilbaxnimada iyo burburka. Intaas waxaa dheer, sheekada Atlantis waxa ay leedahay xitaa saameyn ay ku leedahay dhaqanka iyo fikradaha casriga ah, iyadoo badanaaba loo arko tusaale ka mid ah khataraha ka dhasha xadgudubka, kibirka iyo xumaanta bulsho.